السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور وهذا channel كنا سؤال كميدي قطبتي نواوي ما انتو waxay kala yihiin Soomaaliya oo shatiga dulmaadida kala laabatay shirkado Kenyan ah dibad baxyo ka socda Mareykanka oo dhaliyay cabsi cusub. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa ku maqal doontaan goobda wararkeena. magacaygu waa Muslim Xamsi fadlan haddaan u cusubtaa channel-kan subscribe inoo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinada nagu dambeysay adigoo maadsan. haatan ku soo dhawaad warkii faahfaahsan. dowladda Soomaaliya ayaa shatiga dulmaadka ay ku imaan lahaayeen Soomaaliya kala noqotay diyaarado laba shirkadood oo ka diiwaan gashan dalka Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay mid ka mid ah labada shirkadood oo lagu magacaabo Buuf Air Services inay diyaarad ay leedahay ay si sharci darro qaad u soo gelisay Soomaaliya iyadoo ku xadgudubtay xayiraad ay soo rogtay dowladda Soomaaliya ee dhinaca dulmaadka cudurka COVID-19 awgeed sida ay sheegayaan ila lagu kalsoon yahay. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 26 May shixnad qaad ay geysay magaalada Buuhoodle iyadoo hawada Soomaaliya ku soo gashay inay wado gargaar daawo ah. sidaas oo kale dowladda Soomaaliya ayaa waxay shatiga dulmaadida Soomaaliya kala laabatay Silverstone Air Services oo isla sidaas oo kale lagu eedeeyay inay qaad si sharci darro ku soo gelisay wadanka iyo inay ku xadgudubtay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya cudurka COVID-19 darteed. ila wareedku wuxuu intaas ku darayaa in diyaarad ay leedahay shirkadaasi ay 31 May ka degtay magaalada Jowhar oo ay geysay shixnad qaad ah iyadoo hawada Soomaaliya ku soo gashay in ay siido daawo. dowladda Kenya iyo shirkadaha la mamnuucay ayaan weli ka hadlin tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya. dibad baxyada ka socda Mareykanka ee laga soo horjeedo tacadidii ay ku kaceen ciidanka booliska ee Minneapolis ayaa dhaliyay cabsi laga qabo inuu sii fido cudurka COVID-19. dibad baxyadan oo rabshado wato ahna kuwa looga dhiidhinayo dilkii ay booliska u geysteen George Floyd oo ah nin madow ah oo dilay sarkaal boolis ah ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo faafitaanka cudurka COVID-19. bannaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah laga ogolaanayo in dib loo furo xeebaha laga dalxiiso. bannaanbaxyadan lagu soo horjeedo dilkii Floyd ayaa ruuxay Mareykanka iyadoo laga bilaabo magaalada New York ilaa Los Angeles ee ka dhaceen mudaharaadyo waaweyn. bannaanbaxyaashan oo qaarkood aysan xirnaan maskooyin ayaa in badan oo kamid ay qeylinayeen. guud ahaan taas ku soo gabagabeynaa wixii war dalka dibadda naga soo gaaray. intaan war ceenkan oo kale aan ku muddo waxaan kaga tagaa sidaas iyo amaana Allah.